dhinaca kale guddiga nabadgelyada maamulka gobolka bari ee Puntland ayaa soo saaray awaamir laga hortagayo cudurka coronavirus waxaana bandow lagu soo rogay xilliga habeenka goobaha ay bulshadu isugu timaado. wariyaha VOA Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa arintani waxa ay ka wareysatay duqa magaalada Boosaaso Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan. aad iyo aad u mahadsantahay Faadumo Yaasiin iyo dhammaan bahda VOA. inta kadib runtii shirkan jaraa'idoo xalay aanu qabanay guddigeega amniga ee gobolka bari wuxuu qoto socday ama daba socday go'aamadii ay soo saartay xukuumadda dawladda Puntland oo hogaaminayay Dr. Saciid Cabdullaahi Dani oo ahayd in la fuliyo ilaa dhowr iyo 10 qodob oo lagu badbaadinayo bulshada reer Puntland. waxaanu ka qaadanay awaamirtii qaybtii ku aadanayd anaga ka gobol ahaan iyo ka degmada. maxaa kamid ahaa qodobka ugu horeeya ugu muhiimsan wuxuu ahaa kow in la dardargeliyo lana xoojiyo shaqaynta amniga heegan la geliyo dhammaan laamaha ammaanka ee gobolka bari iyo gaar ahaan magaalada Boosaaso in ciidamadii dib habeyn lagu sameeyo in la dhiiranaado cid walba oo mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ahna ee xoogga saaraan sidii looga shaqayn lahaa amniga guud ahaan iyo amniga gaar ahaan ee magaalada Boosaaso. waxa ku jiray war-saxaafadeedkaas in bandoo lagu soo rogayo magaalada Boosaaso ma habeenkii ba ama maalintii. runtii waxa la joojiyay dhammaan isu socodkii gaadiidka iyo wixii ka dambeeya 6 maqribnimo ilaa iyo 5 subax ilaa iyo salaada subaxnimo. sidoo kale waxa la joojiyay meheradihii ganacsiga gaar ahaan kuwa kafeega iyo shaaha lagu cabo iyo kuwa cuntooyinka maqribkii wixii ka dambeeya ilaa iyo subaxdii. ujeedada laga leeyahay waxa weeye in xilliyadaas dadku ay joogaan guryahooda ay ku nagaadaan si subaxdii dadku waxyaalaha ganacsiga iyo waxyaalaha yar danaha yararka ay u baahan yihiin ay u qabsadaan. taas baa sidoo kale waxa daba taala in subaxnimadii la joojiyay gaadiidkii la oran jiray BL-ka oo ka dhex shaqayn jiray magaalada Boosaaso. sababta loo joojiyay waxa weeye in dad badan isu yimaadaan meel isugu yimaadaan oo israacaan iyadoo laga taxadarayo. waxa kale oo la joojiyay gaadiidka private-ka oo sida khaaska ah dadku u leeyihiin 3 qof wax ka badan inay gaarigii wada isticmaalaan. sidoo kale waxa la joojiyay meelaha kubadda lagu ciyaaro ama meelaha shaleemooyinka oo lagu daawado ciyaaraha iyo filimaanta iyagana sidoo kale waa la joojiyay. sidoo kale waxa la joojiyay xeebaha goobaha xeebaha oo dadku yaamahan maadaama iskuuladii xirnaayeen jaamacadii xirnaayeen goobaha xeebaha oo dadku u dalxiisteegayeen u dabaal tagayeen iyagana sidoo kale waa la joojiyay. waxyaalahaas oo dhan marka waxa la joojiyay oo loo joojiyay qaarna waxa loo joojiyay si rasmi ah qaarna waxa loo joojiyay waxa ku meel gaar ah. dhammaan nidaamada iyo awaamirta waxay hawl dhaqan galayaan laga bilaabo berrito oo bisha ku beegantahay 1 Abriil haddii Allah uu wadalayno. gudoomiye isu socodka gaadiidka magaalada Boosaaso gaadiidkii dadweynaha oo BL-ka waa la joojiyay basaskii isu socodka gaadiidka isaga safra magaalooyinka Puntland iyaga maxaa laga bedelay. iyagana waa laga bedelay wax laga bedelay in wixii maqribkii ka dambeeyay aysan socon karin ilaa iyo amar dambe. sidoo kale waxaan rabnaa inaanu joojino suuqyada ama meheradaha aan markaas muhiimka aan ahayn ganacsigooda kaba soo qaadeen meheradaha ee lagu gado diracyo dharka oo kale meheradaha lagu gado dahabka oo kale meheradaha lagu galo cosmeticska oo kale si aanu suuqi uga yareyno jaamkii iyo dadkii badanayay oo u furnaadaan waxa qotul daruuriga. taas marka wali qorsheeyada waanu wadnaa waxaan rajaynaynaa in isbuuca dambe aanu ka fishirno arrimahaas. safarada caadiga gaadiidka u baxaya gobolada ma xadadeen mase waaba joojisay way sii soconayaan inta maalintii ilaa inta amar dambe xukuumaddu ka soo saari doonto haddii Allah wada leedmo. waxa la joojiyay safarada ama kalluumaysatada ajnabiga oo ka soo degaysa xeebaha magaalada Boosaaso iyo gobolada kale iyo goobaha kale oo xeebaha ah kuwaas waa la joojiyay. waxa kale oo la joojiyay waxa allaale wixii isu imaatina haddii ay noqon lahayd arrimo siyaasadeed in la isugu yimaado haddii ay noqon lahayd arrimo dhaqan in la isugu yimaado haddii ay noqon lahayd arrimo aroos iyo qoys iyo galeelid haddii ay noqon lahayd waxyaalahaas oo dhan ilaa ay amar dambe wixii 1 bisha ka dambeeyay waa la joojiyay. annagu ka maamul degma ahaan marka waxaan rabnaa si aanu dowrka aanu leenahay aanu qaadano inaan dadkii waxaan u sameeynaa wacyigelin waxaan u sameeynaa kala hadalno barnaamijyadaas waxaanu maanta ku howlanahay inaanu dadkii fariimihii aanu gaarsiino wixii ka dambeeyay maanta oo 1 bishaana cid allaale cid awaamirta u hoggaansan weeyda waxaan rabnaa inaan tallaabada ay leedahay aanu mudsiino haddii ay noqon lahayd xarig iyo haddii ay noqon lahayd ganaax lacageed intaba. waxa jira dad danyar ah oo arrimahani ay saameynayaan oo aan gaari khaas qaadan karin barkacayaasha kale meel fog bay degan yihiin haddii la joojiyay gaadiidka dadweynaha maxaa loo diyaariyay. ilaa hadda ma jiro qorshe aan u diyaarinay iyaga laakiinse in qorshe loo diyaariyo ay magaalada ku soo gaaraan waxa ka muhiimsan in naftooda la badbaadiyo sababtoo qofku hadduu badbaadsan yahay meel walba waa gaari karaa oo caafimaad qaba.
waxaa jira ama la sheegayaa in badeecadihii ganacsiga uu sare u kac ku yimid maxaa arrimaha sababay way jiraan arrimahaasu 3 iyo 4 maalmood ugu dambeeyayna sicir barar baa jiray xoogan dhowr waxyaalood oo sababayay dalabaad fara badan oo ka imaanaya gobolada Soomaaliya oo idil barnaamijyadaas dawladdu iyaduna go'aan bay ka soo saartay in badeecadaha la hakiyo in sicirka aan dadka lagu qaali garay dadka danyarta wax rajaynaynaa insha Allah taala inaanu kulama kali ah aan la yeelan doono ganacsatada iyo dadka wax la soo degaan qorshahaasna dawladdu haatan ilaa xalay waanu wadnay insha Allah go'aamo midaysan baan rabnaa inaan ka soo saarno ku wada midaysanna anaga iyo ganacsatada iyo rugta ganacsiga Puntland suuqyada maxaa isbedel ku imaan kara suuqa hilibka suuqa caanaha suuqa kalluunka sidoodii miyay u shaqeynayaan dad fara badan baa isugu yimaada waana waxaan rabnaa inaanu ka yarayno si walaal sidii dadka lagu yareyn karo inaan ku yarayno maadaama aysan jirin shaqo joojin rasmi oo aysan jirin hasaata hadana waxaan rabnaa inaan la tacaalno in la yareeyo isu imaatinada in la yareeyo goobaha la imaanayo waxaanu diyaarinay dad iyo saraakiil iyo dad caadi ah oo shaqaale dawladeeda oo barnaamijyada ka shaqeyn doona hadii Allah wada leeno laakiin marna iyada ma yeeri doono in maqribkii wixii ka dambeeyay magaaladu sidii hore u furnaan jirtay ee u furnaato cid walba waxaan ku amreynaa inay joogto guryahooda lana socoto wixii dhaqdhaqaaqa iyo wixii tacliimaada iyo wixii awaamir ah laga helo dawladda Puntland marka arintaas waa arin amni mase waa arin aad caafimaadka qofka ku badbaadinaysa arrimahaas waxay noqonayaan arrimo lagu badbaadinayo dadka caafimaadkooda iyo badqabka ummadda ku naqan magaalada Boosaaso kamana maqnaanayso meesha in arrimaha amnigana lagu daro si amniga magaalada loo sugo waxay noqon doontaa arrimahaas xil gudasho iyo xaajo gudasho gudoomiye waxa muuqata cabsi xanuunka coronavirus marka wax calaamada oo magaalada Boosaaso ama deegaamada ku dhow lagu arkay ma jirto ma jiro ilaa lanka cid calaamadahaas lagu helay ama cid lagu arkay ama cid la soo xiriirtay ama cid guriyaha joogta inta midna ma jirto ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuusan noo keenin laakiin waxaan oo dhan loo sameeyaa dadaal iyo juhdi iyo in dadkii la badbaadiyo way waxaan rajaynaynaa in barnaamijkaas insha Allah ilaahay ka rajaynaynaa inuusan nagu soo gaaro waxaan wadnaa diyaar garow waxaan diyaarinay xaruntii dadka la geyn lahaa insha Allah taala aan dadka la wadaagi doono maalmahan dhexdooda waxaan diyaarinay qalabkii waxaan diyaarinay oksijiinadii dadaalka dawladdu ee wado iyo kaan wadna midku intuu ma yara